السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عنو wanaagsan asxaabta meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha oo aad ka daawanaysaan dalalka miidiya taariikhdu maanta waa 6 bisha shanaad 2026 aan ku bilaawnay wargeysyada iyo suuqa kala iibsiga wararkii ugu dambeeyay iyo kubadda kolayga kulamadii la ciyaaray ee playoffska kubadda kolayga aan ku bilaawnay kooxda kubadda cagta Napoli ayaa doonaysa ciyaaryahanka weerarka kaga ciyaara kooxda Manchester United hadna amaah kula jooga kooxda Napoli oo 23 jir ah si ay ula saxiixato qandaraas heshiis joogto ah iyadoo aad u soo baxday Champions League lacagta ee ku rabtana ay tahay 38 milyan. Mirror ayaa qortay kooxda West Ham United ciyaaryahanka weerarka kaga ciyaara Summerville oo 24 jir ah ayaa waxaa dabagalo ku hay kooxo badan oo ka dhisan qaaradda Yurub. ciyaaryahanka xulka Netherlands weerarka kaga ciyaara ayaa waxay rabaan inay ogaadaan qandaraaska heshiiskiisa lagu jabi karo. Telegraph ayaa qortay tababaraha kooxda kubadda cagta tababarihii hore ee kooxda Barcelona Xavi Hernandez ayaa la sheegay in uu ku jiro tababarayaasha la xiriirinaya kooxda Chelsea si ay u noqdaan tababaraha xiga xilli ciyaareedka soo socda. Independent ayaa qortay ciyaaryahanka Tottenham goalkeeper-ka u ah iyo xulka Talyaaniga Giuliano Vicario 29 jir ah ee ciyaaryahanka Liverpool qadka dhexe kaga ciyaara Curtis Jones oo 25 jir ah ayaa waxaa doonaysa kooxda kubadda cagta Inter Milan. Gazzetta dello Sport oo Italy soo baxday ayaa qortay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ciyaaryahanka ayaa sugaysa 28 jirka kooxda Bournemouth laakiin sidoo kale waxaa xiiseynaysa kooxda Tottenham Marco Sensi haddaysan u laaban horyaalka hoose ee Serie B-da. Talk Sport ayaa qortay Barcelona ayaa daneynaysa 19 jirka kooxda Bournemouth weerarka kaga ciyaara Junior Krupi waxayna la kulmi doontaa tartan adag oo kaga imaanaya kooxda Manchester City iyo kooxo kale oo ka dhisan horyaalka Ingiriiska. ciyaaryahanka Faransiiska 22 jirada oo ciyaara Sky Sports ayaa qortay kooxda kubadda cagta Juventus ciyaaryahanka weerarka kaga ciyaara iyo xulka Portugal Francisco Conceição 23 jir ah ayaa waxaa daawadeen kooxo badan oo ka dhisan horyaalka Ingiriiska. Gazzetta dello Sport ayaa qortay sidoo kale ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Manchester United Casemiro ayaa waxaa xiiseynaya kooxda LA Galaxy iyo kooxda Inter Miami iyo kooxo kale oo ka dhisan Sacuudi Carabiya iyo Turkiga. 34 jirkan markuu soo dhamaado heshiiskiisa xilli ciyaareedkan laba kulan ayaa waxaa laga ciyaaray basketballka Mareykanka kubadda kolayga. labadaas kulan waxay ahaayeen kooxda kubadda kolayga Detroit Pistons oo la ciyaartay kooxda Cleveland Cavaliers. ciyaarta waxaa 111 dhibcood la timid kooxda Detroit Pistons oo iyo kooxda Cleveland Cavaliers ay la timid 101 dhibcood. sidoo kale waxaana hadda guusha hogaaminaysa kooxda Detroit Pistons oo 1-0 ayay maraysaa. waxaa waaye 4 kulan ayaa la ciyaaray isla reebka playoffska 4 kulan amba ilaa 7 kulan la ciyaaray inta u dhaxaysa. kooxdii markaas kulamo badan badisa ayaa u soo gudubtay wareegga xiga. sidoo kale kooxda kubadda kolayga Oklahoma City Thunder oo la ciyaartay kooxda LA Lakers. kooxda Oklahoma City Thunder waxay ciyaareed fiican ku jirta ayaa 108 dhibcood la timid halka kooxda LA Lakers ay la timid 90 dhibcood. kulamada beri la ciyaari doono game 2 kooxda New York Knicks oo kulankeeda labaad ciyaaraysa kulankeeda hore ee soo badisay kooxda Philadelphia 76ers ka soo badisay ayaa kulankeeda labaad la ciyaari doonta isla kooxda Philadelphia 76ers beri waana 8 habeenimo xilliga Geeska Afrika. sidoo kale gameka kale waa San Antonio Spurs oo la ciyaari doonta gamekeeda labaad kooxda Minnesota Timberwolves oo kulankii hore waxaa soo badisay kooxda Minnesota Timberwolves oo la timid 104 dhibcood kulankii shalay la ciyaaray halka San Antonio Spurs la timid 102 dhibcood.
intaas ayaa kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena ciyaaraha halkaad kala socoteen waa dalka media. fadlan subscribe like share mahadsanidin. facebookana follow comment iyo share like mahadsanidin.